iyada oo maanta loo ballansanaa doorashada maayirka iyo ku-xigeenka degmada Boorama iyo dhaarinta xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa dib loo dhigay doorashadii maayirka iyo ku-xigeenkiisa taa beddelkeedana waxaa halkaasi lagu dhaariyay 13 mudane ee dhawaan loo soo doortay degmada Boorama wuxuuna loolan adag ku dhaxmaray gudaha magaalada Boorama xisbiyada kala duwan ee wadani iyo kulmiye kuwaasi oo ku hirdamaya jagada maayirnimo ee degmada Boorama maanta qodobkeena inoo yaala waa kitaabka Ilaahay inaad ku dhaarataan siiqada ana inni akhriyaya waana diga daba oranaysaa insha Allah taala waxa Ilaahay ugu dhaaranaya inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo wabillahi tawfiiq intaasi kadibna barasaabka gobolka Awdal halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dib loo dhigay kulankii maanta taa beddelkeedana maalinta bariya loo fadhiisan doono doorashada maayirka iyo ku-xigeenkiisa nin baalbeel waxa la yiri kitaab yaro ku soo loorin jiray ba jiro gaagaabnaayo ayaa la ku dhaara kitaabkan ka soo isma la kan yaro waxba ku yeeli maayo dabeedna baaluhu jiray kitaabkii yaraa malkii baa dabeedna xumad qabatay kaasal war maxaa ku haya kaasal wallahi ku soogi bay ku soo karay kitaabkaas oo idin ku soo karin insha Allah khayr baan rajeenayaa maanta hawshan waxay ku dhamaatay dhaarta rutule mushkilad badan haysato habsankiina badan imika 10kii baynu maraynaa 8diina waynu ballanay rutule hadaa la 9ka subaxnimo 13kii noo qura dadkiina kala dhami wada fasaxaatiin iyaga isu shirgudoominaya iyaga is dooranaya hawshaas iyaga leh xogayaha qolo wuxuu qurquraya iyaanu goobjoog ahanayn baa ugu helinayna si kastaba haatee waxaa jagada maayirka iyo ku-xigeenka si weyn ugu loolamaya xisbiyada wadani iyo kulmiye kuwaasi oo kala wata tiro xildhibaana ah ugu ololeynayaan maayirka iyo ku-xigeenkiisa Cabdilaahi Daahir waa STV caalamiga saab magaalada Boorama qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber